ووحي قبالكي تبيه قولدي واقي ووحو فدار ugu qorgo'ay qalabka kiisaahe waxa eelcad qiiqu uga karay qaawin gabareed walay ama qumaata jiro qorigii leeysiye ama qaylo iyo waawaray qooman ku abaade oo laba qabiilo isjecel qaraxdi baaruud jaamac gaab waa oday walise waa xoog waa 65 jir waxaase loo maleeyaa inuu wax dhan ka yar yahay markii la weydiiyo sida taasi ku dhacdayna wuxuu kaga jawaabaa horta weligay cidna xaasid kuma noqon marka labaadna rabbi caana geel buu agtayda dhigay had iyo jeer koofidu basadiisa kama maqnaato wuxuu ku qariyaa bidaar weyn oo uu jeclaan lahaa intuu subax soo tooso inuu madaxiisa ku arki waayo waa nin saddexda adduunyo ee ay Soomaalidu dhaqato hodanka ah aadna looga yaqaan eelcad iyo meelo badan oo bartamaha gobolka Mudug ka mid ah wuxuu dhalay dhowr iyo 10 carruur oo wiilal iyo gabdho u kala baran waa laba bohood mid ma aha intooda kalena waa wada qaangaaro qaar baabaxaas iyo guryo leh dumarkii ay carruurta isu dhaleen markay dhalma daayeen ayuu guur cusub dhexda u xirtay inkastoo tashigaasi uu isaga qudhiisa muddaba ka guuxayay waxaa haddana ku sii hambooriyi jiray odaya ay saxaan oo dhowrkii gu ee u dambeeyey iyagu habla aad u da'yar wada guursaday kuwaas baa waxay kula kaftamaan maxay jaamacow xoolahan faraha badani kuugu filan yihiin haddii aadan carruur ku korsanayn uur iyo araxtoona haween aan waxba kuugu sidin maxaa ku duldhigay ma yaradkaad ka masuugaysaa mase waayaabe islaamahaad ka baqaysaa lagu wadaba gubaabadii jaamaca way ku duxday markaas bay ka go'day inuu guursado oo weliba ishii bugtaabaha ku bekacsatee degaanka oo idil gabadha ugu qadanka iyo quruxda badan uu kala soo baxo isaguse waa oday oo habeenkii intuu soo gaatamo kolba ciidan meel degan hablahooda uma xodxodo tagi karee sidee buu ku ogaan gabadha tilmaantaas leereeraha ay u joogto dhalinyaro uu u adeer yahay intuu hoos ula faqay ayuu bari iyo bogax u kala diray wuxuu kula ballamay gabdhaha degaanka jooga inay uga soo dooraan inan ugub oo bilic iyo ansho wanaag labadaba faceed kaga foortay wuxuu doonayaa dhalinyaradaasi inay ku soo noqoto iyada oo mid waliba uu kula talinayo hebel inuu guursado markaasna uu isagu ka doorto tii inay madhaafaanka tahay ay la ahaato muddo dhowr bilood ah haddii kolba gabar loo soo sheegayay oo looga sheekaynayay ugu dambaystii wuxuu jaamac gaabgowska ku qabtay inan ammaanteeda loo kala bayri waayayoo uu ninka dhalay garanayo waxay tala kaga dhammaatay Cawlale Axmed Maxamuud inuu doono oo si degdeg ah uu aabaheed iyo adeeradeed uu ugu gogol fadhiisto dabadeedna isaga iyo nin ay ilmo adeer ahaayeen ayaa goor subaxa waxay u jarmaadeen reer Axmed Maxamuud oo meel ay u harsan karaan deganaa galabnimadii reerka ma dhaafsanin markay ku warrameenna meel aqalada ka yara dursan ayaa goro dugsoon looga asteeyey fiidhoraadkii baa wanjooga ah loo loogay daribtiisii goortay ka dhargeenna dhiire caana geela ayaa laga durduuray haddii xoolaha iyo daaqa laga sheekaystay ayaa la istusay markuu jaamacdantu u socday uu reeraha u sheegan lahaa in la gaaray oo maxaa loo gaari waayey ma cid kale oo inanta laga dooni lahaabaa goobta ka maqan waa maya saddexda nin ee uu hor fadhiyaa sow midi aabaheed maaha kan labaadii sow adeerkeed rumaad maaha kan saddexaadna barbaarkii walaalkeed ahaa ee kor uga weynaa sow maaha allay leeyahaa markaasuu jaamac wuxuu hoos ka gudniyey ninkii la socday ee ay xigtada ahaayeen si uu isagu hadalka u furo gabadhana uu u weydiiyo kiina intuu nabiga ku salleeyey ayuu yidhi waxaanu idinkugu nimid inaan idinla xididno gabdhihiinna gabar ka mida inaadna siisaan waxaanu idinka doonaynaa Cawlale Axmed oo aanu u doonayno jaamac gaab oo aad garanaysaan garabkaygana fadhiya degdega ayuu Axmed Maxamuudna martida codsigaas uga ogolaaday taana foolkiisa lagama akhrisanoo mugdi bay ahayd waxaa laga ogaaday hawraartii uu hadalka ku bilaabay ee ahayd ninkii gabadhaada ku weydiistay 7 fac buu ku ammaanay waxaa xigay yaradkii oo laga heshiiyey 10 halaad iyo qori 10 la oo jaamac gaab uu gabadha ka keeno markaana loo dhiso waase goorma markuu rees dhoomaa tala dhoobantaa waa tii la yidhi waxaa la isla gartay biyagu markuu eebba cirka ka keeno habeenkaas haddii 10 cisho laga joogo ayaa si aanay cid kale gabadha u soo hawaysan wuxuu jaamac reerkii uu la xididay 2 wiil ugu soo dhiibay deeq aan badnaynoo aan yaradka ku tirsanayn Soomaaliduna ay gabaati u taqeen waxay ahayd hal irmaanoo niragteedii wadata si gaarahana uu odaga ugu galaday iyo dhar sodohda iyo Cawlale ay ku arratirtaan hawshaasi intii ay socotay Cawlale looba sheegin waxay ogaatay oo kaliya markuu odaygu dharkii gabaatiga ahaa
uu hooyadeed ugu sii dhiibayey ee uu ku yidhi u sheeg inantaada in aan jaamac gaab siiyey. maya iyo aabbahay buu iga yahay hadduu rag ka haro, ayay ku jawaabtay kolkay hooyadeed uga tibix siisay ninka la siiyey da'da uu joogo iyo inay guga soo socda xaggiisa u wareegi doonto. markuu aabbaheed taas ogaadayna wuxuu ugu yeeray hoos galbeedka aqalka minweyntiisa oo gabadha hooyadeeda. si walba wuxuu ugu dadaalay inuu taladiisa yeelsiiyo, si kastana wuxuu isugu dayey inuu ka dhaadhiciyo in guurka jaamac ay danteedu ku jirto. ha yeeshee waxba ugama naasacaddaan, inna uguma soo loodsamin, wixii murti uu u soo daliishadayna eebba wax ugama dhigin. ugu dambaystii isaga oo raba da'da jaamac inuu wax wanaagsan u tuso ayuu hadalkii ugu soo gebagabeeyey, maandhay weligaa ma maqashay mahmahdii soomaaliyeed ee ahayd ninku dhali karaa ku dhaqi kara? taasna intay ciddi isku jabisay bay kaga jawaabtay oraah dhiiranoo hablihii la da'da ahaa aanay ku dhici karin. waxay tidhi, oo sidee buu igu dhaqi karaa, wuuba iga hor dhimanayaae. dabadeedna waxay ku war heshay odagii oo inta dhab u carooday dhowr dharbaaxo oo degdega dhabanka iyo isha bidix kala helay, isaga oo hiif iyo haaraanna ugu daraaya. markay kasii cararaysana waxay maqlaysay isaga oo ku leh, bahalku qaad, maalin kastaba nin gayaankeeda oo na soo weydiistay bay nagu ceebaynaysaa. shawciil horuu u qabaayo hadda ka hor bay ku diiday oday soo doonay yarad fara badanna ka bixin lahaa. maxaase xigi doona? jaamac gaab wuxuu ahaa 65 jir, 2 jeer oo hore soo guursaday, carruur iyo xoolaba nin laga badiyey ayuu ahaa. waa dambe isaga oo markaa xagga 70 u tallaabsanaya ayuu doonay inuu mar saddexaad guursado. kolkaas buu aabbaheed ka doonay awrale axmed maxamuud oo geyigii uu degi jiray gabdhihii ugu toolmoonaa ka sii tilmaanayd. laguma dhibina, si degdega ayaa loo siiyey. markuu oggolaaday inuu ka bixiyo yaradkii baryaha hablaha laga bixin jiray kii ugu badnaa, isla markiibana waatay labadii oday ku heshiiyeen guga dambe inay xilaha iyo xaragada isdhaafsadaanoo gabadhu ay xagga jaamac u wareegto. qorshahaas iyadu waxba kama ogeyn, hidda ahaanna loomaba baahnayn. aabbaheed oo keliya ayaa gar u lahaa inuu aayaheeda ka taliyo oo weliba go'aamiyo. ha yeeshee markii taladaa loo sheegay cawlari way ku gacan sayrtay, iyada iyo aabbaheedna way isku afdhaafeen, taasoo gacanqaad iyo habaarba ay odaga kaga mudatay. maalintaas buu axmed maxamuud ku tashaday diidmadeeda inaanu waxba ka soo qaadine kolkuu jaamac yaradka u keena uu ku meheriyo oo weliba si qasab ah ugu gurigeeyo. wuxuu isku qanciyey, oo haddaan sidaas yeelo cid baan wax u dhibay. gabadhi weligeedba oday la siiyey way diidi jirtay, waana lagu qasbi jiray. marka dambena intay ku nagaato way mahadin jirtay. maxay cawlari hablaha kale kaga duwan tahay? waa waxba, ayuu isugu jawaabay. baa curtay cawlala oo ooridiisa ah gugii uu jaamac la wareegi lahaa. meel walbase kama culanna wuxuu ku hormaray, si wacanna ugu dul gabdhamay xidhiir dhudub dhulka iyo ballida lagu magacaabo. waa carshin iyo balli xidhiirsan isu dhowdhow oo jiiraalka markay tahay ceelka dhudub looga arooro. waa dhul dhibicda horeba ay xooluhu inta ku cayiraan ku darari jireen, degdegna ugu tarmi jireen. qoladii muddo ku nagaataaba way ku buraali jirtay. dhasha ayaa si la yaabla ugu kori jirtay. marar badanna waxaa lagu arki jiray rag iyaga oo weli wada ciidana haddana 4 fac oo isdhalay isku soo gaaray. waxay odayadu odhan jireen, lama sheegin qolo intay degtay aan ku buraalin, dabadeedna aan ku jabin, markuu inta kibir taabto ay gardaraysiga dadka kale bannaysato. taana waxaad ka garan kartaa abwaan soomaaliyeed oraah uu ku soo koobay mar taariikhda geyigaa wax laga weydiiyey. wuxuu yidhi, xidhiir dhudub marka hore koris, marka xiga kibris, marka xigana kufis. ballida magacaas leh waxaa ka mid a qaafo qaris, galdhuumood, shirdheere, xaraga mooge iyo saduud leh oo daraawiish ay jeer degtay. madaxaygase midka ugu caansan ee suugaantii qarnigii 19aad iyo kii 20aadba laga helayaa waa Labageed. balligii jirkii Soomaaliyeed intuu lo'diisa u heesay uu ku oran jiray, buurta buur dhudub, banka Labageed oo butada badan, wiil barbaariyo biciid kula miro. gabyaagii la oran jiray Xuseen Cali Jiisna waa balligii uu gabayadiisa midkood ku xusay markuu lahaa, sida gorayga Labageed fadhiya giidu waa ani. roobkii gugu xidhiir dhudub buu ku soo hormaray. ballidaa caadaasa haddiiba naqi iyo cawskibaa meel laga mara la waayey. markaas baa cidhifyada waqooyi ee mudug looga soo hayaamay. ciid baa looga soo guuray. beelo ka yimid ceelcad baa shafka soo dhigay. reerkii ay cawlari ka dhalatay iyo kii jaamac gaabna iyaga oo aan ku ballamin ayay agagaarka ballidaas midba dhinac ka soo degay. sideedana sabanka barwaaqada iyo ladnaantu waa marka ay dhallinyaradu isu hawooto ee inan waliba inantii uu guursan lahaa doorashadeeda uu kanshaha u helo. waa xilliga ay ku kulmaan ballida agahooda, goobaha cayaaraha iyo casaradii markay tahay xoolaha dhexdooda.
habeenkii dambe meel degmada ka yara baxsan barbaar ku ballansanayd dhaantaha ku qabsato oo waa siday rabeenay gashaantimihii awalba loo dan lahaa goobtii ha soo buuxiyeen habeenkaas iyo habeenadii xigayba cayaar wanaaggeeda iyo murtideeda gabadhii la wada jeclaaday Cawrale Axmed bay ahayd markaas buu inan waliba ku dadaalay intuu qalbiga ka xado inay isaga ooridiisa noqoto gabadhise siday ku mahmaahi jireen kulna waa koodisaa kowna waa kala baxdaaye waxay markii dambe u go'day nin warsamo la oran jiray kaas bay is ogolaadeen kadibna labadoodii midna mar dambe goobihii dhaantada laguma arag waxay sheekaystaanba guuriya inuu la baxo ayay ku heshiiyeen ha yeeshee labada mid waliba wuxuu kan kale ka qariyey waxay ahayd inuu ka ogaado Cawrale uma ay sheegin inay doonan tahayoo jaamac gaab la siiyey warsamana iyada sheekadii uguma darin jeer hore inuu soo guursaday 3 caruura inuu dhalay 3dii iyo hooyadoodna ay dayr afraad duuma ka dishay yeelkeeda isaga oo qabanqaabadii la bixidda weli ku jira ayaa qorshahoodii laga warhelay Cawrale aabaheed iyo walaalaheedba way ogaadeen kolkaas bay ku tashadeen habeen iyo maalinba in gabadha indhaha lagu hayo tan iyo inta ninkii la siiyey lagu wareejinayo habeenkii dambe iyada oo inta xoolihii la maaray ay saqdhaxa ku dhowdahay ayaa warsamo oo isqarinaya wuxuu fooda ku soo qabtay geed yaroo aqalka ay Cawrale ku jirto aan ka fogeyn waxaa qarqalka ugu jira qori uustargaaba gabadhana wuxuu u wadaa mara marsiinaa iyo kaba cusuboo ay ku raacdo waa halkay ku ballameen iyada ayuu meesha ku sugayaa oo kordhow ugu iman doonta markayse inta aqalkii ka soo baxday ay u dhowdahay inay la soo joogsato welise aysan soo gaarin ayay ku naxday 3 ninoo laba ay la walaal tahay midna uu ina adeerkeed yahay meel ay ka soo fuureenna ay garan weyday laba ayaa warsamo garbaduub u qabatayoo qorigii inta kala wareegtay baadkiisiina madaxa jilbaha iyo dhabarkaba kaga garaacday kii saddexaadna iyadiibuu inta dharbaaxa iyo haraati u dedejiyey xagga aqalkii hooyadeed u tuquntay lama oo dhaawacan qorigii laga xoogay Cawrale iyo guurkeediina quus ka taagan ayaa aroor hore reerahoodii ka duldhacay toddobaad kadib nabaradii gaaray markuu ka roonaaday ayuu bilaabay tol beeray iyo inuu ku hamiyo nimankii dhibka u geystay inuu ka aarsado waxaa u bannaanayd erge isaga u qareena inuu abaabulo erge reeraha qorigiisii haya uga soo celisa wixii kaloo uu u sheeganayana kala soo xaajoota ha yeeshee odayadii jifada u ahaa ee sidaa kula teliyey wuu ku diiday arrin kale oo shaydaan u qurxiyey ayuu tala mooday isaga iyo laba kale ayaa isku dhaarsaday nimanka godobtooda haya inaanay qori iyo qaantoona ka doonanine ay qambarac ku dhigaan inaan Cawrale cid kale lagula xididin geel laga keenay oo yarad ahna aanu aabaheed weligiiba haaneedin maxay haddaba yeeleen intay dhaqaaqeen bay gabadhii oo ballida midkood dhar ku qasaaranaysa ul ku bilaabeen dabadeedna xoog kula tageen markay geelashii dhex geeyeenna siday doonaan bay ka yeeleen waa kufsadeen oo mid kaliya uma ay dayne way ku moogaysteen dhowr maalmood kadib markay caana diideenna iyadii oo aan gabar ahayn baroortiina ka dhammaatay ayay reerkoodii u soo luuday meelay ku dhibicday waxa la ishaybiyaba sidii loo joogay bay agagaarka aqalka hooyadeed ka muuqatay maxaase xigay hoog iyo ba madaxyo koldhow qoyanaa oo qalalay xaraga moogay maygaag iyo goobo kale oo lagu baaba'ay 44 barbaaro iilka loo walwaalay 23 dhinaca iyo 21 dhinacii kale ah jaamac gaabkii ay Cawrale u doonayna markuu waxa dhacay maqlay ayuu inta dib u gurtay geeliisii ceshaday cid kalena ma ay guursane sidaas bay ku gabowday daas halkii ka qayb galay waxaa Allah u naxariistay kamid ahaa gabyaa Xaaji Axmed Fiqi la oran jirayoo reer Galinsoor ahaa ilka dahabna ku magac dheeraa dhowr iyo 10 gu haddii dagaalada laga joogo ayaa gaban uu adeer u ahaa ay dhalinyaro kale isaga oo gamacsan waxay ka xadeen qori iyo shakad rasaasa oo uu lahaa maanta kadib in badan ayuu gabyaagu qoriga ka ergeeyay ha yeeshee reerihii uu ku sheeganayay wax garowshiga kama u helin alla ilaahay waan dhacantay goortuu isiri ayuu tiriyay gabay goodi ah oo raggii qoriga ka hayay uu ku xusuusinayo gardarooyinkii geyga soo maray iyo goobihii bacnaa ee ay soo jeedeen sheekadan qiiqii calcad la baxday isaga oo aan halmaamin ayuu yiri waa wixii qabaarkii jabiyo qoladii waagii waa wuxuu fidaar ugu qorgo'ay qarabka kiisaahe waxa calcad qiiqu uga karay qaawin gabareer wallay ama qumaata jiro qorigii laysiiye ama qaylo iyo waawaray qooman ku abaade oo laba qabiilo isjecel qaraxdi baaruudu daba soo guraanade waa iyadan ka hor dhaqanka Soomaalida kufsiga laguma aqoon markii tukacad la arko ayaa la maqli jiray meel hebla gabar baa nin ku kufsaday fal loo dul qaato ma ahaan jirin
ninkii ku kacaa kuma badbaadi jirin hadduu ku badbaadana wax takooran baa bulshada dhexdeeda looga yaqiin gabar reerood in la siiyaana aad bay u adkaan jirtay dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduu maanta halkaa inoo joogo